Signal wuxuu ka mid yahay ab maalmihii ugu dambeeyay magaciisu aad ugu badnaa kaasi oo ay sababtay markii shirkadda WhatsApp ay soo saartay maqaal sheegaya in xogaheena qaar kamid ah ay la wadaagi karto platformskeeda sida Facebook oo kale. Haddaba muuqaalkan waxaan ku la wadaagi doonaa bal qaabka aad u isticmaali karto abkan Signalka iyo sidoo kale 5 arrimood oo uu Signalku kaga fiican yahay WhatsApp. haddaad u baahan tahay inaad la soo degto waxaynu ka soo dejin karnaa App Store-ka iyo soo kale Play Store-ka markaad soo download garaysato waxaad soo bixin doontaa sidii caadiga ahayd adoo soo gelin doona numberkaaga iyo magacaaga inta markaad soo bixiso waxa ku soo bixi doona wuxuu noqon doonaa khaanada Stanway kadib waxa arkaysaa markaba inay aad iskugu dhow yihiin oo aad iskugu eg yihiin abkeeni kale aad ka caan ka ugu hayn ee WhatsApp-ka. haddaba haddaad u baahan tahay inaad message dirto waxaad ku dhufan kartaa kale qalinka barta kaaga muuqda adigu bartaan kaaga soo bixi doona numberskii amba isticmaalaya ku save garaysna Signalka. haddaad markaa u baahan tahay inaad raadiso qof oo kale waxaad ku raadin kartaa adoo ku raadinaya numberkiisa adoo ku dhufanaya halkan kadib waxaad bartaan ku qor doontaa numberkii qofka. sidoo kale hadday noqoto video chatka hadday noqoto audio chatka hadday noqoto group call-ka hadday noqoto inaad dirto location-ka aad joogto hadday noqoto voice messages-ka hadday noqoto inaad share gayso files-ka oo kale inta waxay isku mid ka yihiin WhatsApp-ki. waxaynu imikana bilaabi doonaa bal 5 shay oo Signalku kaga fiican yahay amba uu kaga duwan yahayba WhatsApp-ka in isticmaali jirnay. qodobka koowaad ee uu kaga duwan yahay Signalka WhatsApp-ka ayaa waxay tahay waxa taqaana badanaa markaan isticmaalno WhatsApp-ka haddii qof aad garaacdo in call-ka qofkaasi uu ku soo galo dhinaca history-ga amba call history-ga amba nambaradii aad garaacday marka hadhow toolo hadii laga qaado mobile-kaaga waxa si fudud loo arki karaa cidii aad la hadashay amba cidii aad call ahaan ku garaacday. haddaba maadaama nidhi Signalku waa madal secure waxaad awood u leedahay inaad iska xidho in markaad qof garaacdo uu call-kii soo galo dhinaca call history-ga waxa sameyn doontaa waxa tagi doontaa Signalkaaga kadib waxaad ku dhufan doontaa profile-kaaga kadib waxaad ku sii doontaa xaggan ay ku qoran tahay privacy kadib hoos baad u wadi doontaa adigoo off ka dhigi doona xaggan ay ku qoran tahay show calls in recents. qodobka labaad ee uu kaga duwan yahay Signalka WhatsApp-ka ayaa waxay tahay waxa taqaana badanaa markaad isticmaalayso WhatsApp-ka inay dhibaato fara badan ka qabsato numbers aan ku save garaysnayn kuwaasi oo kugu soo qoraya message. haddaba waxa Signalka awood u leedahay inaad iska xidho in number aan ku save garaysnayn oo ku soo galo message-kiisu waxa sameyn doontaa waxaad booqan doontaa sidoo hore kale profile-kaaga Signalka kadib waxaad ku dhufan doontaa qaybtii privacy-ga waxaad off ka dhigi doontaa xaggan ay ku qoran tahay allow from anyone. abka saddexaad oo kaga duwan yahay Signalka WhatsApp-ka ayaa waxay tahay haddii qof aad ka wada hadlaysaan Signalka waxaad awood u leedahay inaad xadido in messages-ka aad ku wada hadlaysaan ay isku dhiganayn karaan muddo xad ama waxaan loo yaqaano disappearing messages-ka. WhatsApp-ku waxa uu soo kordhiyay bilihii ugu dambeeyay laakiin qaabkan uu shaqeynayo kan disappearing messages-ka Signalku waa uu ka yar duwan yahay markay noqoto ka WhatsApp-ka waliba dhinaca waqtiga markay noqoto waxaad awood u leedahay in profile-ka qofka marka tagto aad u baahnayd ku xidho inaad ka dhigi karto time-ka aad ku xidhayso inta u dhaxaysa 6 second ilaa usbuuc xagga WhatsApp-ku ka ahaa isaga 1 week in isku delete gareeyo messages-ku. abka afaraad ee uu kaga duwan yahay Signalka WhatsApp-ka ayaa waxay tahay waxa dhamaantiin nagu wada dhacda in tusaale ahaan qof markaynu la hadlayno intaynu soo qorno message aad u dheer kadib haddana aynu ka walaacno aynu message-ka tirtirno haddana aynu mid kala qorno haddana kaaynu ka walaacno marka u dambeysana message ku soo ururo in qofka aynu dirno kelmad laba line amba hal kelmad oo kale kadib qofkiina la hadlay uu nagu dhaahdo ilaa markii waxa soo qorisay typing-ka soo waday ma waxa uu ahaa intan buu ahaa. haddaba Signalka waxaad awood u leedahay inaad iska xidho in la arko typing-ka soo qodayso waxa sameyn doontaa waxaad tagi doontaa Signalkaaga qaybtaadii profile-ka kadib waxaad ka sii tagi doontaa xaggii privacy-ga waxaad off ka dhigi doontaa xaggan ay ku qoran tahay typing indicators. qodobka shanaad ee uu Signalku kaga duwan yahay WhatsApp-ka ayaa waxay tahay waxa badan ay nagu dhacda markaynu application isticmaalayno kadib aan u baahanahay inaynu si fudud ugu gudubno application kale isna inoo furnaa in la sii arki karo application-kan aynu ka gudbaynay wixii ugu dambeysay aynu ka isticmaalaynay. haddaba Signalka waxaad awood u leedahay inaad tahay iska xidho adigoo sameyn doona booqan doona qaybta profile-kaaga kadib ka sii tagi doona qaybtii privacy-ga waxaad off ka dhigi doontaa xaggan ay ku qoran tahay enable screen security. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa muuqaalkiini koobnaa aynu ku eegaynay sidaad u isticmaali karto abkan Signalka iyo sidoo kale 5 arrimood oo kaga duwan yahayba WhatsApp-ka.
waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad la wadaag doonto asxaabtaada soo kale muuqaalkan like sar haddii aad ka heshay